iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta ka daafurtay magaalada Dhuusamareeb shirweynaha bandhiga tamarta iyo biyaha Galmudug ee sanadka 2024 madashan oo socon doonta muddo 2 maalmood ah ayaa diiradda lagu saari doonaa wax ka qabashada caqabadaha biyo la'aanta iyo tamarta ee ka jira Galmudug iyadoo la soo bandhigayo tiknoolajiyada cusub iyo hababka kor u qaadaya waaritaanka adeegyada aasaasiga ah. bandhigan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug, agaasimayaal, gudoomiyaha Dhuusamareeb, dhammaan daneeyayaasha tamarta iyo biyaha sida wasaaradaha bahwadaagta la ah, wasaaradda tamarta iyo biyaha Galmudug, hay'adaha caalamiga ah, shirkadaha korontada iyo biyaha iyo dhammaanba shirkadaha daneeya maalgashiga labada sektor ee tamarta iyo biyaha. Gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa ugu horeyn shirkan ka waramay daafurkiisa. adduunkii dhamay hadda kulaylka soo kacay waxay noqotay in asaga tamarta in la isticmaalayo naf laga raadinayo. marka ma rabo inaan sii badiyo, waa laba qodob oo is saaran oo muhiim ah oo ay muhiim noo tahay shirkooda in laga dhigo sanad la wareegta ah, mar walbana baahida jirta looga hadlo, la qiyaaso meesha aan ka gaarsiisanahay dadku inay biyo nadiif helaan, korontana inay helaan. qof walba markuu koronto iyo biyo nadiif helo kadib wuxuu cuno iyo maaragtay waxbarasho iyo caafimaad ayaa ku xigta nolosha asaasiga. laakiin meesha hadii biyo lahayn cid ku noolaan kartaa ma jirto. gudoomiyaha midowga shirkadaha korontada iyo biyaha ayaa sheegay in shirkadaha korontada iyo biyaha ay doonayaan una midoobeen sidii loo iftiimin lahaa magaalooyinka. Dhuusamareeb markaa fiirisid ameenka kor ka fiirisid waxaa arkaysaa inay qurux badan tahay, korontaduna ay taagan tahay, oo haddii ilaahay ku aysan lahayn maaragtay dhacdhac aysan lahayn. waxaa ka horreeyey shirkadahaas inay ka soo bilaabeen meel oo aan la qiyaasi karin maanta, iyo matooro muxuu ahaa aan u qalmin in koronto laga dhaliyo. maantana waxay maraysaa magaalo dhan in la shido oo meel walba la ifiyo. marka halganka ay u soo mareen shirkadahaas inay meeshaan wax soo gaarsiiyaan waxaa ka mid ah inay intaa ka shaqaynayeen siday u midoobi lahaayeen oo wax wanaagsan u qaban lahaayeen. wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug Cabdulqaadir Shire Galbeeti ayaa sheegay in muhiimad weyn uu leeyahay shirkan, isla markaana uu fursad siinayo maalgashadayaasha. shirweynaha biyaha iyo tamarta Galmudug wuxuu isu keenayaa dadka muhiimka u ah ee ka kala socda qaybaha dawladda iyo shirkadaha gaarka ah, ururada caalamiga iyo bulshooyinka maxalliga ah. labada maalmood ee soo socota waxaan isdhaafsan doonaa fikrado aqoon iyo hal abuur, kuwaas oo saldhig u noqon doona siyaasadaha iskaashiga iyo fursadaha maalgashiga ee mustaqbalka. shirkan wuxuu leeyahay dhowr yool oo muhiim ah: in la dhiirigeliyo iskaashiga ka dhexeeya daneeyayaasha maxalliga, gobolka iyo caalamka; in la baaro xalal waara oo ku saabsan maareynta iyo biyaha adeegsiga iyo tamarta. gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa ugu dambeyn wasaaradda tamarta iyo biyaha Galmudug iyo xukuumaddaba ugu baaqay in ay dadka u diyaariyaan sidii ay xoogga u saari lahaayeen tamarta iyo biyaha. waxaan ka rabnaa wasaaradda iyo xukuumadda Galmudug iyo dhammaan kambaniyaasha in dadka loo diyaariyo, la wacyigeliyo inay samaysan karaan, ka shaqaysan karaan, soo saaran karaan tamarta, aysan dibad ka sugi karin, diyaarsan karaan, laga soo saari karo qoraxda iyo dabaysha iyo biyaha iyo waxa aan haysanoo dhanba. waxaan rajaynaynaa inaan dhammaantayna iswada kaashanno sidii aan uga dabategi lahayn caalamka, sidii aan wax u qabsan lahayn, sidii aan khayraadkayna dabiiciga uga faa'iidaysan lahayn.